wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cali Caadle ayaa ku baaqay in si shuruud la'aan ah xabadda loo joojiyo dagaal beeleedyada ka dhacaya inta u dhaxaysa tuulooyinka Ceel Xarar iyo Koogaar oo kamid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana wasiirku uu sheegay in deegaanada ay xabaddu ka socoto uu ku baxay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanadaasi dagaalka maanta dhacay ayaa waxa ku geeriyooday ku dhawaad 10 ruux oo maleeshiyadii dagaalanta ah halka in ka badan ay ku dhaawacmeen dareenkayga ku aadan colaadda ka soo cusboonaatay degmada Cadale oo aan rabo inaan halkaan uga diro baaq nabadeed waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee abaartu ay hayso oo dhibaatadu ay hayso meel ay joogsadaan la ee xoolihii ay dhamaanayaan oo dadkii baahida ay baahi u dhimanayaan ma xamili karaan dagaal iyo maaragtay dagaal sukeeye marka waxaan rabaa inaan halkaan aan uga jeediyo baaqoon iraahdo war colaadda hal la joojiyo wixii la kala tabanayna hal isugu yimaado miiska wada hadalka sidaas ayaan ku baaqayaa akhyaarta culamaa u diinka imaamka ugaaska malaaqa madaxda siyaasadda dhammaan waxaan leeyahay hal isugu yimaado halkaas colaadda meeshaas ka socotana ha lagu wada dagaalamo sidii loo joojilay insha Allah taala gudoomiyaha waa ballanay gudoomiyaha iyo waftigiisa iyo maaragtay ciidanka bal in meesha la tago oo xabadda la joojiyo oo ciidamada dhexdooda maaragtay ciidan la dhigo colaadda markii la joojiyo ka bacdina waxaan isugu wada imaan doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo sidii wixii dhibaato oo jira loo daaweyn lahaa haddii Ilaahay ka raali noqdo mana ahayn anaga kaliya magaalada Muqdisho waa laga soo baxay waa la fadhiyaa ilaa saakay madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle meesha ayuu fadhiyaa oo hadda ka hadlaynay siyaasiyiintii iyo duubabkii iyo kulli waa wada fadhiyaan muddo hadda 10 daqiiqo ka hor ayaan la hadlaayay marka xaggana waa laga baxay intana waa ka baxaynaa haddii Ilaahay ka raali noqdo marka ciidanka la kala qaado oo dagaalka la joojina insha Allah taala dhamaanteen waa isugu tageynaa haddii Ilaahay yiraahdo si arintaas loo xalin lahaa wararka laga helayo deegaanada lagu dagaalamo ayaa sheegaya in dab la qabadsiiyay tuulada Koogaar oo kamid ah tuulooyinkii lagu dagaalamay maamulka degmada Cadale oo aan xiriiro kala duwan la sameeyay ayaa ii sheegay in wili ay jiraan is-uruursi ay sameynayaan maleeshiya beeleedyada dagaalamay mana jirto cid si rasmi ah waan nabadeed uga dhex bilowday beelaha dagaalamay Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jawar